انت بدن وقتيada la seexdo ayay u iman jirtay buugaagti oo akhrisanayo dhamacda iyo oogta shidan oo ku iftiinsanayo ayay la daawan jirtay waxay uga sheekayn jirtay sida ayna u rabin ninkan reerkoodu ku daray iyo sida ay u jeceshahay inay miyiga iskaga tagto oo magaalada ay u tagto dhowr jeer ayay ka codsatay marka uu laabanayo xasan inay sii raacdo had iyo jeer marka ay wada fadhiyaan waxaad moodi jirtay in wax weyni ka dhaxeeyo waa ta ugu horeysa indhaha way la kala yaabin jireen waa ta labaade qof walba qofka kale gacantiisuu ka bixi jiray waa ta saddexaade qof walba markuu qofka kale u sheekaynayo ama qofka kale u sheekaynayo xiise gaara ayaa geli jiray waxay iswaraadin jireen iyagoo halkaa kala fadhiya saxansaxada udgoon iyo neefta weylaha sanka layskula raaco sankana layskaga qaato waxay ahaayeen lamaano isku farsan xasan markuu isku qiyaasay jacayladiisii hore iyo kan ka wada horreeyey ee ilaa carruurnimadiisii ku beernaa wuxuu gartay waxa uu doondoonaya ama jacaylkii marna waris u maqaar saarayay marna maryan daba dhigay inuu ahaa kan qalbilula wuxuu dareemay inay tahay wehelkii naftiisa ka maqnaa ee runta ahaa laakiin wax alla wuxuu ka qaban karaa ma jirto waayo dee nin baaba la siiyey inkastoo in loo meherina haddana dhaqanka inuu ka gudbo waa ku ceeb عيلتي رادل وكريس لها روح كانوا ولا بحلها كنتي كانوا من ولا لها قبضي يفرك حيدي بدوسا لها نواقل waxa loo wuxuu sameeyo xasan oo garan la ayuu fasaxii ka dhamaaday maalintii dambe ayaa reerkoo markaa meeshii horena ka guuray oo xashin jiida ka sarraysa degan ayaa xasan ambabixiisii soo galay waxaa la soo raaciyey nin socoto ahaa oo la yidhi baldaabiyadihii allay baday iyo faraweyne iyo dhulkaa uu dabariisiiyo sii gaadhsii aroortaa uu soo baxay ee uu reerka soo nabadgeliyeeyey ayaa gabadhiina ka soo daba baxday jidkay soo mareen ayay iyadna soo qaatay markay geed ku nastaanba geed aan ka fogeyn ayuunbay iyadna salka dhigtaa markay daabiyad yar ama makhaayad yaroo waaba wax ka cabaanna xaggaa horuunbay iyadu ku sii sugtaa gobolkii horaa dhacay iyagoo markaa maraya laba beelood dhexdood guricad laga guuray ayay habeenkaa ninkii iyo xasan u hoydeen halkooga ayay dadka iskaga siteen waxoogaa tahay oo ay siteenna ku cuneen qalbilumina maqorir kale ama dudo kale ayay iska degtay waxa dhacay in cirku iska soo qabsaday xaggaa waqooyi oo daruur iyo fad ku higaagmay dhulkiina wuu soo madoobaaday unkod iyo hilaac ayaa markiiba ay dareemeen saxansaxadii roobka ayay uriyeen ufadiisii ayaa u xigtay bibiciina wuu ku dhuftay
roob dhagaxyaalo ah ayaa mayda kaga dhigay wuxuu ku da'aba waxaa nimbo gu'iisii yaraayo qoyan oo kolbadhan iskaga dadaba dhulkii wuu sii madoobaaday cirkiina intii hore uu ka sii batay markuu wuxuu qaaday roobka iyagoo naf ku noolayn dadkii wuu ka baktiyey qofna qof ma arkayo indhaha haddii faraha lagaa geliyo gudcur aaraadama ayuu ahaa waxa ku maqaalo ahaa xasan in meeshaa ay marayaan libaax lahayd habeenku madowgiisii cabsi iyo sakati iyo dareen ayuu ku darsaday libaaxa cidiisii oo runana xasan wuu maqlay ninkii kaluu ku jeestay wuxuu yidhi cabdiyow waxaan eegayaa waa maxay dadkeenna miyiga degani sida dadka magaalada uma baqaan waa libaax murti yaroo sahla wuu yidhi xasanna shaloo kalay naftu ka tagtay haba iman lahayda sanqad baa haddana ay maqleen warbahalkii raamaha lahaabaa soo dhowaadeen ayuu yidhi cabdi haseexane baleen hurdaba xasan ma ahayn ninka kalena nin foojiguu ahaa waxaase cidlo u fadhida qalbilula libaaxii labadii nin ayuu muskoogii soo dul joogsaday bahalkii ayaa weeraro ku soo qaaday yur ayaa codkoodii ay ku didiyeen dhowr jeer xagga kale ayuu ka soo wareegis yidhi